وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد مدحوينها محكمة دولة ديغان كصوماليدا مدن علي بارود iyo dhammaan ku-xigeenada kala duwan xafiisyada kala duwan ka socda gudoomiyaasha gobolada maxkamadaha sare gudoomiyaasha maxkamadaha degmada dhammaan garsoorayaasha halkan fadhiya iyo ka soo qaybgalayaashaba waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh shirkan waxaa aad iyo aad sharaf iigu ah inaan ka soo qayb galo isla markaana aan nasiib u yeesho inaan ka hadlo runtii riwaayadii waxaan ku horeynayaa halkan lagaga hadlayay riwaayadu ka garsoor ahaan markay ku jirtay maxkamadaha si guud boqolkiiba boqol bay ahayd aad iyo aad bay maaragtay waaqic u ahayd waxaana leenahay maxkamaduhu iyo garsoorayaasha daawanayay halkaas inay aragtidii kaga habboonayd ay ka qaataan waxaan aad u soo dhaweynayaa oo aan ugu mahad celinayaa gudoomiyaha maxkamadda guud mudan cali baaruud afhayeen ku-xigeenka hadalladoodii ay halka ka yidhaaheen baan aad u taageersanahay waxaan ku horeynayaa oo codsigaygu koowaad uu yahay afhayeen ku-xigeenka wixii uu ka shanqadhiyey ee ahayd garsoorku goorta aan cadaalad helayno kolka isaga la daryeelo wey ma tahay soo maa waxaan ogahay anugu oo si hoose u ogahay mushaarka yar ay qaataan qadarka uu yahay inayna 10 cisho ku filayn sidaa darteed afhayeen halkaa aad ka qaaday waxaan kaa codsanaynaa ka bulsho ahaan ka odayaal ahaan inaad hawshaas sida aad u qaadatay lagu daro miisaaniyadda sanadka garsoorka la daryeelo guri loo sameeyo mushaarkiisu ku filaado ta kale waxa kale oo hal ka sheegaya isbeddelka 7 sano ee dambe iyo cadaaladdu boqolkiiba boqol inay maaragtay garsoorku una ahayn kii shalay ee uu aad iyo aad uga fiican yahay marka laga reebo kuwa boorsada wata ee bannaanka marka laga reebo kuwa boorsada watay ee riwaayadda ku dhagaysanayay taa marka laga reebo taasina garsoorkay u xilsaaran cid kasta oo dhaqdhaqaaq mukhallas ah inay garsoorku soo jeedo oo dadka ka warhayo mas'uuliyadda saaran way idinka waajib baa idinku leeyahay idinkuna maaragtay xukuumadda waxaad ku leeyihiin waajibkiina in la dhameystiro sidaa darteed karaamadeennu waxay ku jirtaa garsoorkeenna oo sharaf yeesha karaamadeenna iyo jiritaankeennu wuxuu ku jirtaa garsoorkeenna oo dhowrsoonaada karaamadeenna iyo jiritaankeennu wuxuu ku jiraa garsoorka oo marka ay maxkamadda sare u xukunto xukunku hadduu sax yahay meel walba si socon karo halkaas ku dhammaanaya haddii qodob qanci weydanaaya buu soo noqonaya halkiibu ku soo noqonayaa sidaa darteed qofka inagu ama maxkamaddu waxay xukuntaa waxay caddaymo u aragtay inuu dhammaystiran yahay ma xukunto inuu ninkani asal u leeyahay nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam yidhi anigu alxanka iyo qofka doodiisa iyo caddaymihiisa ayaan ku xukumi laakiin waxa aan xukumay xalaal noqon maayo haddii caddaymaha lagaga batay darteed aan ugu xukumo wixii ninkii xalaal uma noqonayo marka inagu waxaan maxkamaddu idinku waxaad u saaran tihiin caddaymihiinnu waxay sheegayaan hadday doonayeen ahaaniba laakiin caddaynta aad qaaday unba adiga waajibku ku saaran yahay siday tahay inaad uga salgaadhid ta kale isbeddelka ka bacdi runtii dee maxkamadda gobolka faafan oo shalay sidayn ahayd aan ognahay waxaan aad uga mahad celinaynaa garsoorayaasha iyo guddoomiyaha jooga haddaba inay boqolkiiba boqol aad iyo aad u fiican yihiin waa maxkamadda annagu aan ka warhayno annaan uga warhayno sidii odayagii halkaa markii joogay aanu si kale uga warhayno waxaan leenahay maxkamadda boqolkiiba boqol way mahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu